barnaamijka martida ramadaanka bisha ramadaan taariikh gaar ah ayay u leedahay muslimiinta. masjidka weyn ee Qirwan waxaa dhisay tabiicigii weynaa ee Uqba bin Naafic. waxa uu ku yaalaa dalka Tunisia oo dhaca waqooyiga Afrika. hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO waxay masjidkan ku dartay goobaha taariikhiga ah ee caalamka laga xuso. taariikhda masjidkaas iyo xilligii la dhisay oo bil ramadaan ku beegneed ayaan kusoo qaadan doonaa xubinta taariikhaha diiwaanka galay. cali cabdulle hilowle ayaa ka wareystay sheekh Nasruddin Shukri Xuseen. بسم الله والله علم ودوه هاد بكم هاد علنيا أذي وهالوذين إذا عدى هم الأفهم هذا نقول بسؤال شادي ويديسي تاريخ ديس أو كوبان مسجد قروان أما قراوين نواشكه مساجد سيدا طبعا أهمية وين بيقولي المسلمين تا المسلمين تو وحكاد سجر المناطق دي يو جهوين كي أما أعاق يقبسين جرين أما الدقامات أي فورين جرين waxyaalaha ugu horreeya ka hirgelin jireen waxay ahayn masaajidda marka masaajidda waxay ku soconayd micnihii astaan islaami ah iyo hiwaayad islaami ah micnihii ayaa lagu muujinayay shicaarka islaamka marka masaajidkan waxaa lagu tiriyaa masjid qaraawin masaajidda ugu caansan ama jawaamicda ugu caansan la dhisay xilligii maartay cahdiga islaamka jaamicul qaraawin wuxuu ahaa حضارة أفراد أسان مسلمين تو في بلاد المفتوحة بلاد أما عرية أما دولك أفرتان سيدا بصرة يكوف وهذا وضعك العراق كترسن يفوسطات ومصر كترسن وحانا مرت الدولة ما هي مساجدة اختيار كذا يعني مساجد هذا أن كان لنا تصالحان بيجوا كيالو ودورشو لغفير صدي أو مسكح مرت عقل بدن كسو محاتي waxaana ka dambeeyay masaajidkan dhisitaankiisa taabici la dhihi jiray Uqba ibn Amir yani Uqba ibn Amir saarka doona wuxuu dhashay xilliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin Nabiga Muuse arag qafka Nabiga xilliga sallallahu alayhi wasallam islaamay Nabiga rumeeyay kadibna Nabiga la kulmay saxaab loo yaqaana qafka xilliga Nabiga rumeeyay laakiin aysan kulmin Nabigu sida boqorkii ahaa Najaashi malikul Habasha dhulkan ardu Habasha la isku dhigi jiray ka talin jiray النبي يقول رمي لكن النبي موسى أرك وحلو يقنا دتك النوعاسة مخضرمين هل كدتك أنت النبي رميين لك كل من سحابين بلو يقنا وح النبي أنت كذب رميين وحلو يقنا تابعين أتباع تابعين السلف الصالحة إلى يومنا هذا معنيه مسجد كقراوان هل كي لقى دسي مسجد كم حلقة دسي جامع القراوين منطقة أفريقيا وقوي يعني تحديدا مقالة قروان وضعها حاجة وقوي وضع تونس مقالة سو مقالة فعوين وقروان اللي له منظمة يونسكو لها أو كم إذا منظمين عالمية أو هيئة قرامة قبل سنة اسميالك يمقالون قديمة إن ديوان قليان أيها وحي أوقصتي موقع محل عالمي أنت عارف مركز تكون شغال بقول زديتني وزديدي وحمقالة وحلو تري مركز إن مقالة إسلامية ومقدسة سيدا حلقا أنا جوجنه وحي معنيه أن عن كتاي وحصوصارك لنا ولي حبوبك وحيالا سلقة صار وكبحة xoolaha maartay xayawaan ba maartay badan ba ya maartay deegaankaas Qirwan ku taalo maartay ya maartay ya ku badan waxyaalaha in la sheego ka haboon waxa weeyo jaamicul Qirwan waxa la dhisay taariikhda miilaadiga markay ahayd 670kii xuleey asmaa fara badan oo kale oo masjidul Qirwan ka ahayn magaciisa waxa kamid ah masjidul kabiir masjidu sayyid Uqba iyadoo loo nisbeeyay shakhsi asaasay oo saan sheegnay Uqba ibn Naafic ninka la jiray maaji ku yaala marka masaajidkan ومقالة قروان دحبرتك كذا واي مقالة قروان اللي هذا دحبرتك كذا يكون له ولما ميلو دو حل جد شرع الإسلام في الورق من جري حاكمك إسلام كها ماجو فرسين جري سكتات تبغي الشيغان حاكمك وينو فرس مقالة دحبرتك كذا يكون المساجد كان مقالة دحبرتك كذا مقر أمام مكان دو حاكمك ماجو فرسين جري ولما الشارع عم جيتك وين مقالة تونس ولا حياله أيوم مساجد كويا له كويا لجري هذا كهر لكن هذا جامعا وحول عاو كويا له meel u dhow magaalada jihooyinkeeda ama suurarkeeda waa hore magaalooyinka waxa lagu sameyn jiray darbiya lagu wareejin jiray arba irta gooban laga soo gali jiray sida ay taariikhdan soo guurinayaan waxay leeyihiin suurka ama dhinaca ba iska leenahay aan dhahaynaa dhinaca waqooyi galbeed waliba dhinaca waqooyi galbeed iyo hadda kaga yaala masaajidka magaalada Tunis magaalada Tunis taariikhdeeda dhisitaankeeda ama aasaastaankeedii wuxuu u laabanayaa qarnigii 11aad ee miilaadiga yaa dhisay masjidkan Qirwan waxa dhisay شخصيا هورك سوح السنة عقبة بن نافع مقعد الصدح وحاويه عقبة بن نافع ابن عبد القيس ابن لقيط ابن عامر ابن أمية ابن طرب ابن الحارث ابن عامر ابن فير القرشي
wuxuu dhashay san hore soo sheegnay xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin nabiga lama saaxiibin waliba nabiga intuusan madiina u soo jiroon hal sano ka hor waalidkiisii wuxuu ahaa shakhsiyaadkii ugu horreeyay diinta islaamka qaato ka mid ahaa waalidkii naafic ibn cabdilqays sidaa daraaddeed wuxuu ku soo barbaaray oo ku dhashay guri ka mid a guryaha islaamka marka hogaamiyahan cuqbat ibn naafic saxaabiga jilka la jiray camr ibn caas walaalkii weeyaan radiyallahu anhu ardaa hooyadiina waxaa la dhahaa annaabiqa sidaa daraaddeed cuqbata marka waxaa loo yaqaanaa inuu yahay walaal saxaabigan camr ibn caas walaalkii oo xagga waliba hooyada ah laakiin waxaa jirta riwaayo kale dhahaysa waa habro wadaag laba gabdhood walaala ayaa kala dhalay waxaa kaloo jirta riwaayo dhahaysa waxaa dhashay camr ibn caas saxaabiga jaliilkan hore kusoo sheegnay walaashii baa dhashay oo marka intuu u yahay adoo markaan isku soo khulaasayno wuxuu ka mid ahaa aqaaribtii iyo dadkii ehelka u ahaa saxaabiga jaliilka ee camr ibn caas sharaxaad guud naga sii guulihii uu soo hooyey cutba bin naafic wuxuu horta hore shakhsiyadiisa wuxuu ahaa shakhsi maartay arrimaha ciidanka ku xeel dheer oo geesi abu ahaa haddii aan wax yar ka taabanno guulihii uu u soo hooyey muslimiinta cuqbat ibn naafic wuxuu ku saamoobay bay-adii uu ku soo barbaaray wuxuu ka qayb qaatay futuuxaadkii iyo meelihii ay muslimiintu furanayeen bal sayidina cumar bin khadaab radiyallahu anhu ardaah ayaa wuxuu u dhiibay oo waali uga dhigay ama hogaamiye inuu hogaamiyo ciidamadii muslimiinta ee futuuxaadka samaynayay ciidan ka mid ah wuxuuna hogaamiye uga dhigay geesinimadiisa iyo awooddiisa iyadoo loo yahay sayidina cumar inuusan u dhiibi jirin hogaaminta ciidanka ilaa shakhsi saxaabi ma ahaani marka shakhsiyaadka kooban ayagoon asagoon saxaabi ahayn loo dhiibay dowlad mahay ciidanka hogaamintiisa ayuu ku jiraa marka waxaa soo ifbaxday ay soo caanbaxday xidignimadiisa ka hogaamiye ahaan iyo dagaalyahan ahaan khaasatan galbeedka carabta maqrib alcarabi injaazaadkiisii waxyaabihiisii hortubinta lahaa hogaamiyahan jaliilka ah ee weyn waxaa ka mid ahaa inuu hogaamiyey futuuxaadka islaamiga hogaamin xaamiye ah markii uu ka waali dhigay oo ciidanka hogaamiye uga dhigay xilligii khaliifatu cuthmaan radiyallahu canhu ilaa muddo marka hogaamiyey ahaa ilaa khilaafadii sayidina cali bin abi taalib laga soo gaaro markii lagu daro inuu ahaa mujaahid fii sabiilillah ku jihaadaya wuxuu ahaa inihii daacibu ahaa markuu furtay biraqata magaalo la yidhaahdo kadib camr ibn caas baa wuxuu amray cuqbat ibn naafic inuu u jahiso Taraabalus magaalada la yiraahdo si uu maartay uga sameeyay halkaasi in uu maartay u sameeyay khidad ciidanka halka ku sugan khidadaas oo maartay isaga difaacaan weerar kasta oo suurtagal ah oo ku yimaada marka cuqbat ibn naafic manaaqiqdan aamin buu ka dhigay marka nabadgelyada buu sugay ilaa uu soo gaaro mandaqada la dhaho marka intaas u dhaxaysa Taraabalus iyo Zuwayla wadadiisi uu soo marhay kumuusan arag wax muqaawama ama iska dhicina ama ciidanka hor yimaada la dagaalama marka Zuwayla ehelkeedii wuxuu kala heshiiyey sulux inay bixiyaan 13,000 oo dahab ah halkaas marka wuxuu ku nagaaday saxraadii buu ku nagaaday soo islaamka ugu yeeray dadka faafinayna muddo ku dhow 20 sano markuu furay Zuwayliya kadib wuxuu u soo jahisay meel dhaho Nuwaybata waliba amar ka imaad xagga sayidina Amr ibn Caas radiyallahu anhu warda ayuu ku socday waxaana xilligaas sanadii 20aad ee hijrada rasuulka sallallahu alayhi wasallam markay muslimiintu soo gaadheen Nuwayba way furteen wayna galeen waxaana soo galeen Nuwayba dadka deganaa taxta liwaa muslimiin bay soo galeen waxa kale oo uu maartay waali ka ahaa hogaamiye ka ahaa jeeshkii ciidankii Afriqiya ama Afrika u qaabilsan muslimiinta wuxuuna ciidankaas ku hogaaminayay amar ka ahaaday sayidina Muawiya ibn Abi Sufyaan xilgiisi asagii ciidankiisa markay ku sugnaadeen halkaas muddo iyo asagii ciidankiisa waliba dadka ku islaamay Qaraawiin magaalada Qaraawiin hadda soo xuseen ka soo shaqeynayeen wuxuuna ka dhigay Qaraawiin makaan ay muslimiintu leeyihiin oo ay maartay ku nagaadaan in magaalada la dhiso amray waxa laga dhisay marka masaakin meel la dogo iyo masaajid islaamkana marka ku sugnaaday dad fara badan baa marka soo galeen diinta islaamka marka wuxuu caamil uga dhigay khaliifatu Muawiya muslimatu ibn Makhlad al-Ansari asagoo bedelaya Cuqbat ibn Naafic marka uu yimid waxa yimid Abu Muhaajir la dhaho oo mawla maslama mawlihiisi ah Afriqiya yimid mana uu wanaajin macaamilada kula macaamilnay Cuqba wuxuu aaday marka Shaam buu aaday oo markaas dawladii sayidina Muawiya looga talnay wuxuu u tagay Muawiya marka uu ku canaantay Abu Muhaajir qaabkii uu la macaamiloday hogaamiyahan qiimiga badan Muawiya marka waa uga cudurdaatay arrintaas wuxuu u ballan qaaday inuu ku celinayo Afriqiya mar labaad ku celinayo arinta marka ma aysan hirgelin oo waxaaba dhintay sayidina Muawiya markuu dhintay wiilkiisii Yaziid ahaaba marka qabsaday hogaaminta islaamka kadib marka wuxuu u soo magacaabay Cuqbat ibn Naafic isagoo dardaarka abi fulinaya Afriqiya uu soo laabtay marka Afriqiya waxaan ahayd xilligaas sanadii 62 wuxuu furay oo gacantiisa ku furay Cuqbat ibn Naafic manaadiq iyo deegaano wadadiisi uu soo maray Afriqiya markuu soo socday ku yaala
sida mandiqada sirta oo la dhaho hadda waddanka liibiya ka tirsan bilaad wadaan oo kaleeto jarmata oo kaleeto faazaan oo kaleeto waxaa ka mid ah waxyaalaha la sheego marka laga qasoonayo markuu furanayay bilaad wadaan marka la isku dhaho cuquba markuu soo gaadhay miqdaamis meesha la dhaho wuxuu maqlay ana ahla wadaan dadka dega inay buriyeen ballanka ay la galeen ballankaasoo ka dhexeeya iyaga iyo bishruna abi ardaat cuquba markuu u baxagoodu aaday isagoo ilaalo wata ciidana mar labaad uu furtay mar labaad gacanta soo dhigay waxaa kaloo uu sii furay markuu waddada sii socday magaalo la dhaho jarmata socodkiisuu sii watay asagoo maaragtay magaalooyin fara badan sii furhaya ilaa uu gaadho macasarkii uu ka sameeyey miqmadaas oo maaragtay laga helayo sirta kadib wuxuu sii aaday wuxuu uga sii tagay Afriqiya asagoo furtay magaalada loo yaqaano ama mandaqada loo yaqaano Qadamis mar labaad cuqbatun naaficin markii magaaladan furtay qirwaan ah ku nagaaday wuxuuna ka dhigay maqar iyo bakaan nagaadi iyo muslimiinta uga dhigay wuxuuna ka dhigay boos diinta islaamka laga faafiyo ilaa noloshiisa aakhirkeedii say u noqoto dhufays laga difaaco muslimiinta iyo saldhig maaragtay laga ilaaliyo amniga waqooyiga Afrika ay muslimiinta markaa haysteen iyadoo uu dooray cuqba magaaladan qirwaan booska laga dhisay asaga dooray markuu kala tashtay raggii ciidanka hogaaminaya qaar ka mid ah marka wuxuuna u dooray magaaladan makaan munaasab ah haba ahaado makaankaas mid geedo badan ha ahaada iyo daabooyin iyo xuushta duurjoogta ku badnaayeen marka ilaahay uu baryay inuu ilaahay xuushta duurjoogta iyo waraabaha u ka saaro meejan ilaahay ducadiisa waa ka jibay marka wuxuu amray marka ciidankiisii geedihii bay guraan si magaalada looga dhiso waxayna ahayd magaalada dhismaheeda bilaabashadeedii kontameedi hijrada rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka magaalada dhismaheedii laakiin wuxuu kaamil noqday 55 marka masjid buu ka sameeyay jaamic halkaas iyo boosas ay dadku degaan waxay noqotay muslimiinta saldhig askari ah inooga waran qaabkii uu ku shahiiday Cutba bin Naafic qaabkii uu ku shahiiday khadrabkan ama tabiiciga jaliilka ah hogaamiyahan islaamiga ah markuu magaalada qirwaan uu maartay salka u dhigay muslimiinta degaan inta kadib wuxuu gaaray socodkiisa u socday wuxuu furtay aqsa bilaad al-maghrib dhulka loo yaqaano ama hadda loo yaqaano waqooyiga Afrika waa Tunis iyo Morocco iyo Algeria iyo Libya dhulkaas weeye oo maartay weeraradii ay soo qaadeen Roomaanka ama Talyaanigu ay soo qaadeen ama reer Yurubka uu radiyay dantii u kalahan uu ka gaaray maartay fatiga islaamiga meelo ugu muhiimsan uu qabsaday wuxuu go'aansaday kadib inuu soo laabtay Qirwaan markuu u soo laabtay magaalada Qirwaan intuu dhaxal soo jiray markuu soo gaaray meejal dhaho Danjata ciidankii uu amray marka inay iska kala tagaan waxaana maciisa baaq ku haaday 300 nin oo ciidankiisa kamid ah marka wuxuu la soo leexday magaalada dhihi jiray Tahwadata halkaana shirqool baaba loogu soo dhigay asaga iyo ciidankiisii marka ay soo hujuumeen soo weerareen cadawgii ciidankiisii marka cadawga is dagaaleen ilaa markaas dan uu halka ku shahiido asaga iyo ciidankii la socdo dhan baa la dhamiyay halkaas ku dhamaadeen wuxuuna ahaa xilligaas uu shahiiday tabiiciga jaliilka sanadkii 63 ee hijrada rasuulka sallallahu alayhi wasallam booska ku shahiidana wax loo bixiyay magaciisa loo bixiyay ilaa hadda wax loo yaqaana magaciisa loo bixiyay Cuqbatun Naafic baa loo yaqaana maraajicda loo raadsan karo macluumaadka soo sheegayni waxa kamid ah kitaabka iska leeyahay sheekh la yiraahdo Abu Hassan ibn al-Athir kitaabkiisa Usdul Ghaab la dhaho fi macrifati saxaaba dabcadii koobaad daarta kutub cilmiya safxada 57 juska afraad iyadoo leeyahay macluumaadka waxa laga soo badbedelay kitaabka labaad waxa laga raadsan karo waxa weeye كتاب ولي الشيخ لده دكتور علي محمد سابوني ووادو انت الله نحرست الله يرحمه تاريخ ليبيا الإسلامية كتاب لده طبعا كوبات وعمان لغو مارتي طابعي دارتا بيارق لده صفحات الله بقول صدني تضبط الى الله بقول صدني سديد يدور وحلقه بدري waxaa kaloo laga rasan karaa kitaabka ولي الشيخ لده محمد محمود القاضي كتاب ومجلس او دري ودهاي عقبة النافع الفهري فاتح افريقيا دارتا دار توزيع ونشر الإسلامية صفحة الشنات ee laga raadsan karaa marka barnaamijkeena intaas ku soo koobina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Nasruddin Shukri Xuseen waxa uu martay inuu go'aa xubinta taariikhda diiwaanka galay bisha Ramadaan